dagaalkii wuxuushnimada ahay ee ka dhacay Masaajid Cali Gaduud ayaan ku hadlaynaa. waxaan nasiib darro weyna walaalayaal in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay baylah. sababtay tahay markii laba jiha ay ka soo weerareen kaga sii daranee markay qarax rideenba baabuur risaasa meeshii yeelay ayaa dhowr iyo 20 nin oo faras jayda lagu dhuftay ka orod badan ay toos soo aad dibna saadag iyo weedhiya kulmiyay bal yaa u sheegay baabuurka risaasa meesha ku jiro yaa u sheegay isweydiyaado marka waan man argagaxaysaa shacabka Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed oo dhibaato ku ah oo dilmo wax kale laga ma dhaxayaan say marka sirtaan ku heli karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sirtii ku heli karaan say baabuurka risaasa ku heli karaan sirteeda wada shaqayn baa jirto mas'uuliyiinna la shaqaynaysa calaal u shaqaysiyaala waxay la hayso haalan looga yahay waxa meesha ku baabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hariya habeen qoraxdu taagna iyo dhalanteedka waxaase kaloo nasiib darro weyna lamaha sirdoonku ay ku macmuulay cunayaan ilaahay baan ku raartay qaabka waxa ka dheer iyo waxa ku soo dhow iyo waxa dhibaatada keeni kara ay ku soo ma baran miya dalaqdama barooneed oo wixii aanu qalmin ima qalma dhaysay in ka say luqad adkeed alxamdulillaah marka walaalayaal shacabka Soomaaliyeed qarankan Soomaaliyeed badbaado u baahan yahay ciidanka badbaado u baahan yahay xukuumaddaanu waa xukuumad laba wajiila labada meel buu la shaqayso media markay soo istaagtana magac qaab daran shacabku u yeerto agaxiso ugu yeerto laakiin waxa yihiin qaarka qowda maqasho waxna ha u qaban waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inuu kaca marka si ciidankeena Soomaaliyeed ee qaaliga ee dhibaatada looga badbaadiyo walaalayaal maanta Xasan iyo Xamsa dhibaato ka weyn uma jirto hadday meesha dhaafaan ciidankuna waa badbaada shacabkuna waa badbaada shabaabna waa la iska qabana